iyadoo ay soo baxayaan jawaabo degdeg ah oo ku aadan heesta ay soo saareen kooxda waayaha cusub ee loogu magac daray heesta nabar iyo naxdin ayaa waxaa soo baxayay jawaabo degdeg ah ay bixinayaan fanaaniinta Soomaaliyeed iyo weliba sidoo kale aasaasiyaashii qaar ee kooxda isla waayaha cusub. fanaanka Digriyo Cabdi ayaa waxa uu si adag uga jawaabay heesta ay soo saareen kooxda waayaha cusub ee hadda saldhigoodu yahay dalka Holland. heestan oo saacadii la soo dhaafayba qabsatay baraha bulshada aadna loo hadlayay. heestan oo ah mid lid ku ah dowladda Soomaaliyeed isla markaasna looga soo horjeedo hoggaanka dalka ugu sareeya ee xisbiga Nabad iyo Nolol ayaa waxaa arrintaasi si adag uga soo horjeestay isla aasaasiyaashii mid ka mid ah kooxda waayaha cusub. fanaanka Digriyo Cabdi ayaana waxa uu yiri anoo ka mid ah aasaasiyaashii iyo weliba buddhigayaashii kooxda waayaha cusub oo uu yiri waxaan ka mid ahaa aasaasiyaashii kooxdaasi oo loogu talagalay buu yiri wacyigelinta dhiirigelinta shacabka Soomaaliyeed ayaa wuxuu yiri waxa ay hadda noqotay mid meesha ka baxday isla markaasna uu yiri waxay kooxda lugaha la gashay arrimo siyaasadeed. waxauna yiri waxaan ummadda Soomaaliyeed uga tacsiideynayaa magicii iyo weliba kooxdii waayaha cusub ee aan u soo halgalnay si loogu adeego buu yiri shacabka Soomaaliyeed iyadoo hadda ay noqotay kooxda mid loogu adeegayo fikrad siyaasad iyadoo shakhsi buu yiri u adeegsanayo. waxaana meesha ka baxay buu yiri haykalkii iyo weliba sidoo kale buu yiri arrintii loogu talagalay kooxda waayaha cusub. fanaanka Digriyo Cabdi oo isagoo ku nool dalka Sweden ayaa waxa uu si adag uga soo horjeestay isla go'aanka kooxda ee ku aadaneed soo saarista heesta nabar iyo weliba naxdin ay ku weerarayaan dowladda dhexe ee federaalka. gudoomiyaha kooxdani waayaha cusub Shiina Khiyaar oo horay u hordhac uga sameeyay isla heestan ayaa waxa uu sheegay in heestan ugu talagaleen buu yiri hoggaanka ugu sareysa ee dalka isla markaasna buu yiri shacabka Soomaaliyeed aan ku tusinayna buu yiri waa sida hadalka u dhigay arrinta hoggaamineed iyo weliba fashilka ku yimid. isla arrimahaasi oo dhan waxaa ka hadlay qaar ka mid ah isla kooxda waayaha cusub oo ugu horeeya fanaaniinta Digriyo Cabdi iyo weliba Dalmaryaro isagana sidoo kale sheegay saacado ka hor in uu gabi ahaanba kooxda waayaha cusub uu isaga baxay isla markaasna qaar ka mid ah aasaasiyaashii kooxdaasi ay ku dhawaaqi doonaan saacadaha soo socda ama maalinta beri ahba go'aan kama dambaysa oo ku aadan arrintaasi. fanaanka Digriyo Cabdi ayaana sheegay sidoo kale isagana inuu ka bari yahay wax kasta oo ku dhacay buu yiri magaca kooxda waayaha cusub.